بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن إذن هانتين بدا وضيال ومركلي برامج كيني كلن كشبلي وادين وقبرتين تدوا دول بهذا أي وكله برامج كان أي هذه يشير وحن كسو قادنا سؤالية جواب الدينية سؤال هذه نسوي ديسان سوا في وجه جواب الشيخ نوين الشيخ محمد الشبلي حفظ الله داود هدي أدوني سينات برامج كين نقل قيب قادته واحد سؤال هذه نوقص ودري كرتا عوان كشاشة إذن كجم مقدر كلن كشبلي أتصومال كيبل تي في أو برتا إنه فيسبوك كل إنها هاي وكلن كشبلي الصومالي كيبل برنامج كان وحلقة لحدن إيا الشناد السلام عليكم شيخ فليت عليكم السلام ورحمة السلام عليكم ولا الوالدين سلام أديك أي شيخ السلام كدي بحن شيخ ويدين يا مركي تنتا إيجا جودو مطوري كرا أما قشن كما كودري كرا جزاك الله خير بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد أحمد وتيمها يعديها مركا أما الله تشارو أما يقوان يو marka la yiraahdo banaanaansho ma banaan tahay hawa banaan tahay in lagu tuuro banaanka ama qashinka la raaciyo laakiin si ka fiican ma jirta fuqahadeena jamhuurtoodu badankoodu waxay yiraahdaan maadaama qayb bin aadamkii ka mid ay tahay bi aadamka ilaahay sharfay oo karaameeyo walaqad karamnaa bani aadama la yiri waxa wanaagsan in meel lagu aasa daahira طبعا xubnaha bani aadamka ka tirsan gacan iyo lug iyo haday goodo intaan ogahay khilaaf badan kama jira culimadeenu inay tahay in la aaso iyadoo la karaamaynayo saas darteed waxay yiraahdeen taa anagoo raacinayna iyo aathar saxaabada qaarkood laga wariyay ibn Umar radiyallahu anhu ardaahu rag lamida iyo culimada fuqahadeena aymadii arbacada ahayd badankood iyo madaahibteenu ku tageen inay wanaagsan tahay in la aaso oo meel taahiriya meel lagu aasa wanaagsan bay yiraahdeen haddana dhinaca kale wax taxriiminayo oo diidaya qashinka in la raaciyo ma jiro way qashinka in la raaciyo ama qashin qubka lagu daro ama la iska tuuro haddana dad kale dhib u keysanaynin way bannaan tahay laakiin fuqahadeenu sidana ka sii fiican bay leeyihiin raxmatullaahi calayhim jamiican naam magacaygu waa cabdifatax su-aasheeda waxay tahay su-aal hore lagu weydiiyey waxayna ku saabsantahay shiicada waxaan rabaa inaan kala ogaado farqiga u dhexeeya shiicada ku nool Iiraan iyo kuwa Syria alxamdulilah shiicadan Syria oo nusayriyiinta ama calawiyiinta la yiraahdo iyo shiica al-Iiraaniya iyo Ciraaq iyo kuwa la midka ah ama Xisbullah iyo Lubnaan oo iyagana 12 iyo la yiraahdo horta gudaha waxaan rabaa inaan yiraahdo dhamaantood waa 12 aymada 12 ka weeye markii labadii imaam al-Hasan al-Askari iyo wiilkii wuu dhalay ay yiraahdeen isagoo dhalan Maxamed al-Hasan al-Askari waxa Hasan al-Askari imaamka 11aad ka dhigeen markii uu dhintay waxa farac kama tagin waxa ka dambeeyay Maxamed ibn al-Hasan al-Askari buu dhalay bay yiraahdeen laakiin duruuftii jirtay darteed buu meel qarsoonan la ogeyn buu galay hase ahaatee waxaa arki jiray dad sufara la yiraahdo oo isaga ka soo qaada fariimihiisa uu soo gaarsiiyo kadibna dadka isaga raacsan uu soo gaarsiiyay yiraahdeen alxaqiiqa wiilka ma dhalan meel ku dhashay Xasan al-Askari naxt taariikh wuxuu dhalay ma jiro wiil Maxamed la yiraahdo ma dhalin laakiin inta iyagu isku raacsan yihiin oo ninkii 12aad Maxamed al-Hasan al-Askari inuu yahay بعد ذلك موسى بن محمد بن نصير والنصيرية الله تيرينيو waxa uu sheegtay inuu yahay safiirka khaaska ah ee isaga kaliya wax ka soo tabin kara labadii imaam ee Xasan al-Askari iyo Maxamed al-Hasan al-Askari meesha baabiyadu ka soo bilaabato albaabkoodii baanahay baabiyadana waxay ka socotaa xadiis ay wariyaan oo nabiga yiri ilaahay ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha marka Ali baa albaabka nabiga laga galaaha imaammadana niman aniga isoo marin Maxamed ibn Nusayr iyaga ma gaari kara ciidan aan ahayn fariin ma soo gaarsiiyaan kadib waxyaabo badan buu sameeyay oo madhab gaar ah noqdeen kuwa kalena awlaad bay ku tilmaameen oo qoladan waxay yiraahdeen way inxiraafeen oo marka dambe 12 kale Nusayriyada way takfiiriyeen waa gaal ay dhahay muslim ma on duruuf siyaasiya hadda isu keentay maahan laakiin labaduba 12 ama Jacfariyada 12 ka imaam way wada socdaan wixii ka dambeeyay yaa baab ah yaa safiir ah baa lagu kala tagay sadarteed hadda نصيرية علويين بيجوا تعلين لنا نسبة لعلي بن أبي طالب أما أكثرهان
ama taageerayaal ahaan hadba midkii loo dhigaba marka madaahibta hoose ee fiqhiga iyo furuucda iyo isku mid ma aha aad bay u kala duwan yihiin walow nusayriyadu ama calawiyada tansiir yani idhaahdee ay qayb cuskadaan kutubta waaweyn ee maraajicda itnaa cashariyada ee afarta ay qayb cuskadaan laakiin markii hore saasay u kala fogaan jireen hadda laakiin duruufta siyaasiga aad moodaa inay isu soo dhoweysayo waxyaabo wada midaysan ay qaadaan wabilahi towfiiq waataa jazaaka allahu khayr sida wanaagsan aad oga jawaabaysa su-aalahayna soo weydiiyaan daawadayaasha assalaamu calaykum dhammaan bahda soomaali cable iyo sheekh maxamuud maxamed shibli waan idin salaane ilaaha idin barakeeyo waxaan ahay wiil soomaaliyeed oo ku nool magaalada muqdisho ee xarunta soomaaliya waxaan rabaa inaad ii faahfaahiso sheekh waxay diinta islaamku ka qabto gabar ayaa doontay wayna ii joogtaa ilaa aan ka diyaargaroowo ama waxbarashadeeda oo waxyar iga dhiman tahay aan ka dhammaysto waalidkeedna raalli igu yahay waana igu kalsoon yihiin aniguna way iga go-an tahay inaan guursado gabadhaas marka aan diyaargaroowo ee bal ka waran arrinkaas alxamdulilah axmed wax dhiba ma laha hadday reerkan gabadha mas-uuliyiinteedii iyo gabadhii lafteeda iyo isagu sidaa heshiis ku yihiin inay sugto inay wakhtigaa isguursadaan hadday raalli isaga yihiin dhib ma laha haddii isaga hawshii u suuroobi weydo ama qoladii kale waxyaabo keena sababa wixii laysku ogaa inuu socon waayana dee wakhtigadaa laga hadli karaayoo dadku wixii yimaada dee soo kordha hadba xukunkiisuu yeeshaa laakiin xaraj iyo dhibaataa mala labada qof muddo inay ku heshiiyaan muddadaa kadib ay isguursadaan ama waxyaabo shuruud iyo diyaargarowi ay isku xidhaan guud ahaan mushkilad ma leh in raalli la isaga yahay oon laysqasbaynin unbaa muhim wabilahi towfiiq assalaamu calaykum waan ku salaamay sheekh waxaan ku weydiinayaa marka la ducaysto kadib in faataxo la maro ma qasab ah alxamdulilah horta laba arrimood aan idhaahdo su-aashaada jawaabteeda hadday tahay maya haddii la ducaysto ducadana aadaabteedii la ilaaliyo faataxadu ducada ka mid maaha duco kasta gadaasheed faataxa la akhriyana bidco waaye midda kale laakiin anu intaan ka fahansanahay mujtamaceenna soomaaliyeed iisoo ducee markuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay faataxada iisoo mar faataxa maritaankii unbaa akhris layskaga daray ee asalka ereygan isticmaalka dadkeenna inta badan markaad eegto ii duceeye weye faataxa muraad baan rabaa muraad baan leh ii duceeye weye hebel faataxada iisoo mar uu yidhi iisoo duceeye weye marka haddii lagu yidhahdo faataxada iisoo mar aan faataxadaan marsanna aan ducaysanna weye ducaysta eraygaa in loo isticmaalo inaan ducaysanadii faataxaan maranayo faataxa la akhriyayno la ducaysanayo xaraj malo dee isticmaalaadka dadku erayga isticmaalaan dhibaato ma laha laakiin ducada bedelkeedii faataxa la akhriyo ama ducada marka la dhammeeyo faataxa lagu khatimo labada midna sal ma laha wabilahi towfiiq marka hore waxaan salaamayaa sheekha daadiyaha barnaamijka iyo dhammaan bahda Somali Cable marka xigta waxaan rabaa in la iga jaahil bixiyo su'aashan haddii aad qof jeceshahay la guursado misna guurkaas uu ahaa mid qasab ah iyaduna ay ka codsatay inay qofka iska furto kadibna adiga ku soo raacdo marka aniga ma haboon tahay inaan codsigaasi ka aqbalo sharciga islaamka muxuu ka qabaa arrinkaasi jazaakallahu khayr alxamdulilah aqbalkeedu ma banaana iyaguna isdhaqdaan iyo inay kala tagaan iyadii jirta laakiin qof dumar oo la guursaday oo la qabo inaad xiriir guur la sii yeelato xaaraan iyo dembi weyn waayo waxyaabaha nabigeenu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka sameeya inuusan janno gelaynin waxaa ka mid a naag ninkeeda ninka qofka ku dira oo reerkaa dumiya daba socodkaagu reer isku dir waayo guri dumin weeye wixii u weynaa ee shaydaan qaban jiray baad qabanaysaa saa darteed dembigaasi waa dembi ka mida kabaa'irta mar haddii nabigeenu yidhi alayhi salaam tilmaamay inay naarta jannadu xaaraan ka tahay qofka saas oo kaleeta ah fi xadiid abi hurayra iyo wakayrka ay ku timid marka waxaan rabaa inaan idhaahdo waa dembi weyn oo kabaa'ira mana banaana qoftan mar haddii la guursaday gurina iyo reerna ay noqoto caqdi iyo nikaax dhacay xiriirkiinii guruu dhammaaday gabdho waa badan yihiin mid kaloo jeclaatana waayi maysidoo ku anfacda marka wax alaal allaha kuu fududeeyo iyadana reerkeeda allaha ku qanciyo qalbigeeda ku dejiyo allah u barakeeyo bilahi towfiiq
السلام عليكم waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo sheekheena weyn Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli salaan kadib waxaan sheekh weydiinayaa xisbul tahriir xagee ka taagan yihiin wadada saxda ee shareecada suuragal miya in shareecada lagu dabaqo dadka muslimiinta iyagoo degan wadan ay ka taliyaan dad aan muslimiin ahayn alxamdulillah axmed waa laba su'aalood su'aasha waa xisbul tahriir su'aasha kalena shareecada in lagu fuliyo dad aan muslim ahayn su-aasha koowaad ee xisbu taxriir horta waa 1950 iyo waxbaa la aasaasay waxaana aasaasay nin falastiinin ahaa markii dambena Beirut ku geeriyooday waqtiyada qaar ka mid ahna Azharna ka soo baxay Urdunna marar joogi jiray oo Yusuf an-Nabhani la yiraahdo Yusuf an-Nabhani xisbu taxriir hadduu aasaasay waa xaraka islaamiya siyaasiya wey ujeedadeedu ugu weyn waa khilaafa islaamiya la soo celiyay dhahan laakiin ma aha in tarbiyad diineed iyo caqiido la dhisay iyo iimaanka dadka la dhisay lagu soo celinayee dood iyo thaqaafad iyo fikirka dadka oo la bedelo in lagu soo celiyo way yiraahdaan marka u dambeysana saddexda marxalo ay sameysteen heer la marayo marka u dambeysa cid la kaashado la garabsado xukunka si loo qabsado in la helo way warka nuxurkiisu intaa way waxay leeyihiin xisbu taxriir waxyaabo badan baa lagu eedeeyaa markii hore 13 sano ay qabsay bay xadideen inay xukun ku dhalinayaan khilaafadii markay 13kii socon weyday haddana 13 kale ay ku dareen markay wax ku keeni waayeen 30 bay ka dhigeen intiiba dhamaatay waxna ma keenin waxay keenan lama arag marka sababtuna qaybo kamidii waa inxiraafaadka caqiida ahaan iyo amal ahaan labadaba caqiida ahaan waxa kamida ay qof kasta ku qasbaan oo xubnahooda kamida inuu beeniyo ama inkiro dajaal imaatinkiisa ciisa soo noqonay cadaabul qabri baa jira waxa soo dhan ma rumaysna qofka iyaga kamid noqonayana waa inuu ku qancaa oo san rumaynin la dajaal wala ciisa imanay wala cadaabul qabri ma rumayaan sida kutubta muallafaadkooda iyo mudakaraadkooda ku qoran ama uragoodii hore ga tageen ama raggii xubnihi ka dambeeyay ninkii zaluum ahaa iyo raggii ka dambeeyay ay sameeyeen أما فتاوى عملك هي سيدة خلافة لو سعري حكم كذا النقانا يانا فتاوى بدن وغريبة إليهن الناق تأجنبي قاعد له سلام حتى الله دون كذا ناق هذا قبيل أجنبي إن اللي بعتلهين إن الدولة الإسلامية خلافة الإسلامية ومدح كان نقضى إن قال مدح كي سؤال قيبتي هذا ضمن حلقة سيدا وصع طبعا ومرينا إياه ودي خلافة الإسلام كي الرادين هي الدولة الإسلام كي الرئيسية وقال مدح كان نقضى ويقبان ninka uu sareeyay xitaa uu sareeyay gaal loo dhiibo waxyaabo saas oo badan baa kamida marka inta aan kaga kaabsado xisbu taxriir laakiin waa xaraka jirto iyadu say isula muuqata ama say rabto khilaaf islaami inay soo celisa rabto su'aasha qaybta labaad meel ay gaala xukumaan oo madax gaala ka yihiin diinta islaamka lagu dabaqi karaa iyagu hadday aqbalaan ha طبعا lama qasbi karo meesha iyaga madax ka ahaatiri hadday meesha iyaga loo dhiibto muslimiintu haysteen oo maamul yar leeyihiin oo muslimku hoos yimaadaan maamul guud oo muslim hoos yimaadaan haddii muslim baa maamulaal dhihi karaa meesha laakiin iyagoo muslim aan hoos yimanin heshiis gaarana aan la gelin ay ku hoos yimaadaan ay xukun ku qaataan iyagoo hadday raalli noqdaan baa ninkii meesha haysta lagu dabaqi karaa iyagoo hadday raalli noqdo xukun inay qaataan axkaamtii shariicada waa la fulinayaa ahlu dhimmiga muslimiinta la noolaaba iyagoo muslimiin ba axkaamta sharciga lagu fulinayay axkaamta sharciga way fulaysaa dariiqeedana way qaadanaysaa way dhici kartaa in beledka markaa la yiraahdo fuqaada qaarkood say qabaan islaami weeye haddii la eego xukunka lagu fulinaya lagu dhaqaya haddii la eego dadkiisu ama dadka inta badanba gaal ahaadeen laakiin waxaa tasawurkaada uga fog inay dadka xukunka iyo maamulka haystana gaala yihiin shariica islaamna ay wada dabaqaan inay meelo ay iyagu jecel yihiin ay rabaan ka qaataan maahane labadaas aad isuma qabata tasawur iyo sawir ahaan laakiin hadday dhacdo xukunka islaamku waa fulaya wallahi billahi tawfiiq السلام عليكم waxaan rabaa inaan sheeqa weydiiyo hooyaday waxa xanuunta lug ay biyaha ka ilaaliso markay weesada sidee ku ansaxmaysa hadii ay lugta kali ka reebto inta kale ay wees qaadato alxamdulillah inta kale way wees qaadan lugta marka la soo gaarana way gabagabaysan oo biniyati lugta inaan biyaha marin bay u gabagabaysan biyaha hadii la marin waayo gabagabaysi baa ka
haddii xubnihii qayb aad marin kartaan fattaqullaha ma statactum weeye iyo qaacidii almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur waaye intaad awoodda lagaaga cafin maayo inaadan awoodin darteed weysaduna waa wax qaybsami kara intay awoodana biyahay marin inta kalena way u gabagabaysan wallaahi towfiiq. asalaamu calaykum sheekh, waxaan deganahay London, odagayga waxa uu degan yahay Dubai iyo Soomaaliya. in badan ayaan ku duceysan jiray mar un inaan ka tago dalkan gaalada, laakiin odagayga waxa uu leeyahay ii dacwow aan imaado baasaboorka markaan qaato kadib ayaan Soomaaliya degaynaa. haddana waxa aan rabay inaan macnaha ka noqdo arrinkaas ee haddaan diido oo aan iraahdo waan soo guuraya oo Soomaaliya aanta wax dambi miyaa iiga imaanaya arrinkaas. jazaakallahu khayr. alxamdulilah maya wax dambi kaaga iman maayo, xaqna waad u leedahay, adigana waajib kuguma aha waddankaale isaga inaad geyso, adiga iyo ilmahaagana waddankaale inaad ka soo tagtaan oo meel kale u idin geeyo waajib xaqaad ugu leedihiin way. saas darteed haddaad diidda dembi maaha. billahi towfiiq. waa tahay sheekh, haatan waxaan u gudbaynaa su'aalihii ay noo soo direen walaalaha madrasada 114 bar ama baro. asalaamu calaykum sheekh, waxaa jirtay in gabadhaydii ay hadda shaqo bilowday. markay shaqadii bilowday gurigii kiradayna lagu soo dallacay. marka haddii aan gabadhaydii ay ila degan tahay darees kalena ay xaafad kale ka dhigato welina aynu wada degannahay, wax dembiya miyaa naga soo gaaraya? jazaakallahu khayr. alxamdulilah ha dembi baa idinka soo gaaraya, sababtoo gurigan kiradiisa halka waxaan ka fahmi karaa waxaa laydinka bixiyaa bisabab inaydaan shaqaynin, dad shaqeeya idinla deganayn, saasaa laydinku siiyaa. haddii aad shaqaysaan oo dakhli yeelataanna waxaa laydinku siinaya ma mudanaysaan oo xaq u yeelan maysaan. waana sababtaan ka fahmi karaa in laydinku soo dallacay. wixii dheeraadee laydinku soo dallacay marka dakhligiina la eego inaad ka doodaan xaq baad u leedihin. laakiin idinkoo shaqeeya oo dakhli idin soo gala inaad buuxisaan ood u sheegtaan inaan wax shaqeeya meesha deganayn, dee waa been. heshiiskaad ku degteenna waa heshiiska bixid. wixii been lagu helana xaaraan wey, asalku xaaraan wey been lagu helo. saas darteed gabadhu ama meel kale ha degto ama wixii hadday shaqaynayso ku soo aadi lahaa hadday shaqaysato qofku sanduuqyada wax laga kabo. qofka shaqaysta waa heerar, intaan meelo badan ku arkay. hadduu dakhligiisu intaa dhan yahay intaasaa laga kabayaa, hadduu halkaa gaarana kabis ma laha. shuruudda sidaasihii dadka xoolahoodii aad ku qaadanayso shuruudooda in la ilaaliyo waajib wey, in been loo sheegana xaaraan wey. saas darteed haddaad shuruuddii intaaad buuxisaan iyo inteedaan buuxinin inaad ka doodaan xaq baad u leedihiin, laakiin inaad been sheegtaan waxaydan xaq u lahayn ku qaadataan lama ogolo. billahi towfiiq. weli waxaynu ku guda jirnaa su'aalihii 144 ay noo soo direen walaalaha madrasada 114 bar ama baro. asalaamu calaykum sheekh, waa ku salaamay. salaan kadib waxaan ahay maamo waayeel oo 60 sano jirto. waxaan aad u jeclahay inaan soo xajiyo, nina ima qabo, waa keligay. marka haddii aan raaco gruubkan la sheegaya xajkaygu ma ansaxba? awoodna uma lihi inaan qof kale ka bixiyo, qof i raaco inaan lacagta ka bixiyo, balse waxaan jeclahay inaan intaan noolahay soo xajiyo. jazaakallahu khayr. alxamdulilah axmed saan marar badan sheegnay masale khilaafiya wey masaladu, laakiin annaga waxaa raajixna laha fuqahadeena shaaficiyada iyo jamhuurtuna qabaan jamaaca aamin oo isyaqaanaan oo dumar iyo rag maxaarimtoodii isla socda oo misqaba isla socda ay jiraan, iyadana xaaladeeda daryeelaya oo ka warqabaya, dhibaato male way soo xajin kartaa. oo rufqa alaamina, rufqa iyo jamaacan raacaya keliya maaha, dad aamina oo daryeelaya ka warqabaya inay yihiin baa shardi ah. dadkaa rufqadaasaa darteed baa qeydka ama shardiga aamina lagu daray. kuwa hadday hesho way aadi kartaa, way raaci kartaa. billahi towfiiq. waa tahay inta ayay noogu gudbaynaa su'aalihii ay noo soo direen madrasada walaalaha 114 bar ama baro. daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii kulanka shibli oo aad inooga barateen toddobaad dolbahaadaha iyo kala qaybihiisa dhexe. daawada haddii aad gadaal kaga soo biirtay aad doonaysay inaad su'aalahaaga inoo soo dirto, waxaad inoogu soo diri kartaa ciwaanka shaashada idinkaga muuqda kulanka shibli at Somali Cable TV, ama barta aynu Facebooka ku leenahay waa kulanka shibli iyo Somali Cable. barnaamijkana waa xalqadii 65aad. magacaygu waa cabdiqaadir xasan bulbul oo jooga wadanka Ethiopia. waxaana salaamayaa sheekha iyo daadiyaha barnaamijka. waxaan rabaa in la iga jaahil saaro waxa loo yaqaano faalka. Soomaali waxaan ka maqli jiray nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa aatay ayaa yiri faal lama rumaysto mana la beensado. marka arrinkaasi sheekh maxaad nooga sharaxi kartaa, maxaa ka jira? alxamdulilah axmedow, intaan garanayo horta hadalka nabiga inuu yiri ma jirto, wax sugan maaha. waxaan is leeyahay labadaba in lagu khalday way dhici kartaa.
saddex qodob aan dhaho qodobka koowaad waa kan lagu khalday dhici karta qayb ka mid ah nabigu ahlul kitaab markii laga hadlayo wuxuu yiri la tusadiquhum wala tukadibuhum haw rumaynina hana u beenin habna beeninina ha rumaysan hana beenin taa in lagu khalday waa dhici karta waxa qodobka labaad oo dhici kara in lagu khalday nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkii muslim warinayay mucaawid al-xakam as-sulami ku salaada dhexdeeda ku hadli jiray qaybteeda dambe waxa kamid ahaa nabiga in la weydiiyay minna rijaalun yakhutuuna dandaga mid dhulka xariiqo wax ka raadiyo xog ka raadiyo saasay noqon lahaa jira marka nabigu wuxuu kaana nabiyyu min al-anbiyaa yakhut faman waafaqa fadaka nabi anbiyadii hore kamida oo sameyn jiray baa jiray ninka tiisi waafaqa okay way ninka tiisi waafaqa hadalka culimadu raxmatullaahi nabiga ka ah nabigu ma sheegin laakiin mufassiriinta iyo shuraaxdii waxay u badan yihiin oo sheegaan nabi idriis buu haba yiraahdaan laakiin iska israa'iiliyaad iyo un maahan wax hadii khabar ku asaxay ma arag inuu nabi idriis alayhi salaam marka halka laga soo tagay xadiidkan macnihiisu cinda jamaahiiri ahli ilmi وحتى نووي مركو شرحه في صحيح مسلم شو شرحه waxay ka hadlayaan xadiidkani nabigu hadalkiisa wuxuu ka dhigan yahay inuu dadka ka reebay way nabi baa sameyn jiray ninkii waafaqa see nabigu sameyn jiray lama hayo nabigu ka ahana lama hayo inaad waafaqday lama ogaan karo marka maradaan la ogaan karin waxaan dhici karin lagu xiray in la isu diidaya laga qaadanaya xadiidkaas kaana in la isloo qaatay oo dadka waxyaabahan sixirka iyo ku jira marar qaarkood xadiidka way daliishadaan wuxooda inuu qaar sax noqon karo طبعا شياطينتي وحي لا شقيسنayayba nabigu wakiilaha waxbay soo xadaan fayakdibuna ma'a 100 kadbatin ihtimaal way dhici kartaa in waxyaabaha qaarkood waxaan niri uu sax noqday qeyl maaha qodobka ugu dambeeya rabeenaa iraada faalku waa nooc sixirka kamida ama kitaab laga faaliyo ama tusbax laga faaliyo ama dhul la xariiqay laga faaliyo wixii la doonay laga faaliyo faalka Soomaalida waxa soo gala waxyaabo badan kahanadaas oo Carabiga lagu yiraahdo soo gala misalada carraafka soo gasha baa faalka kamid yahay waxa soo galaya diyaarada qaybo kamid ah soo gasha iyo wax baasaysiga waxaan la eegayo ama laga faaliyo cidiyaha laga faaliyo cidiyaha intii khadda la saara madow waxba la fiirinaya tuugiyo ama la yiraahdo baa la shidaaya ka sharad baa la maray waxaan oo dhani وكو النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد غيب شيء شوي بحد ذاتها كشقيس هذا كفر وي أظن إن هذا تقتنع أفرط مع الموت صلاة لقى أقبل مايو هذا بدر الرومي سترى كفر بعد كل عضي وبالله توفيق جزاك الله خير سيدة ونكسنة أشرح هذه السؤال شو نسوي دي داوديها السلام عليكم شيخ كتابك قرآن كمركو دمادو أما ورقدي أي كجودا حقي لجو أستوران ميا لجو بيا مسه وعلى آسيا كيبا بنان تهذا كلا كتابك مركا لكورسارو سيدا بوقتها أما حدي وشنطة وكجر شنطة كلا كورسارو واحد بمية ليدا جزاك الله خير. الحمد لله أحمد والله مسألة سنة كتابك وحلا كورسارو يوي سنة كتاب جوجاي وي كتابك جوجاي سال لجو سماينا يا الله بدأ وجهه بنايين إن وحمرة طاهرات جلسوا وحطاهرات كدوبتو نظيفة كدنا مالان عكتو مرينين أو طاهر ونظيفة كو آستو أذو فوقينية مادام قف وحي علماء الخلقة كقاتين ويكسى ليين قضب كاس علماء قبط مادام قف بني آدم كإلهي كرامية قرآن كنا كسي كرامة بديه ليري ميت كي قف مسلم كاه هلا أسطره احتراما ميت كلا احتراميه iyo meelaha inuu yaallay qashin inuu noqday in lagu istaagiyo laga ilaalinayo qubuurtii dadka in lagu istaaga la diiday isagana meel in lagu aaso meel aan cagtu ku istaagayninna lagu aaso culimada qayb baa qaba fuqahaada madaahibtaana qaarkood baa qaba sida xanaabilada iyo rag lamida fuqahaada shaafiiciyadu iyagu waxay qabaan qowlka labaad ah in la gubo marka la gubana la burburiyo la warqad hadii dabun la qabadsiiyo qoraalka waxba si muuqanaya in la burburiyo dambaskaana meel daahira lagu daadiyo asal waxa waa Uthman radiyallahu anhu wuxuu sameeyay fi sahih al-Bukhari way ku sugantay qisada Uthman markii musxafkii weynaa uu ururiyay wixii waraaqay ama saaxiib la haystay uu ka soo ururiyay saxaabada intii kale uu gubay saxaabadiina cid tiri Uthman waa khaldan tahay ma jiro arinta aad baa lagu riyaaqay kaasi waxay yiraahdeen waa ijmaac muslimiintu ay isku raaceen saxaabadii
in la gubi kara labadaba waa bannaan yihiin haddii aniga la yidhaahda kee dooran lahayd kana dee saxaabadu ay sameeyeen ee khulafadu ay sameeyeen ciidan kartayna aynan jirin baa aniga ila saxsan gaar ahaan weliba inta adoo haysta markii ay madhabkeenna iyo imaamu shaafici uu raacana dee sidii ninkii raxbiyada lahaa uu yidhi maan dhihi lahaaye zayd ibn thaabit markuu ka hadlahayey iyo faraa'idka laa siyama waqad naxahu shaafici buu yidhi gaar ahaan weli waxaan kusii jecelahay shaafici baa raacay isagoo saxaabada faraa'idka ugu yaqaan afradukum zaydan wanaahika biha fakaana awlaa biitibaaci taabici laa siyama waqad naxahu shaafici taabiciinta cid raacaysa ninkanoo nabigu si gaar afradukum zaydun baa idinku yaqaana uu yiri wey waxaa noo sii dheer buu imaamu shaafici baa ku raacay tan waxaa leeyahay saxaabadii samee khulafadii waxaa noo sii dheer imaamu shaafici iyo madhabka shaaficiyadu insaa muctamadka yahay wabillahi towfiiq alxamdulilah axmed su-aasha intaan ka jawaabin tii hore su-aashii labaad baa dhinayd anna waa halmaamay anna waad halmaantay su-aasha labaad waxay kitaabka musxafka waxma la kor saari karaa waxa la kor saarayo laba suuro ay ahayd su-aashu in si toosa loo kor saaro iyo si dadban in loo kor saaro sida tooska musxafka wax ma la kor saari karaa culimmadu waxay ka hadlaan waxaan la kor saaraya hadduu yahay qof barkanaya iyo alaab mataacu dunya iyo badeecad iyo la kor saaraya ma banaana waa sharafka qaad qaacidaduna waxaa weeye musxafku ixtiraam iyo qadarin buu mudan yahay wax kastoo qadarinta iyo ixtiraamka meel kaga dhac ku noqonayoon habboonayna waa xaaraan waxaa bedelaya zamanka iyo darafka la joogana saameyn buu curfigu ku yeelanayaa waxaani waa sharafka qaad iyo sharafka qaad maaha suwarka qaarkoodna waa la isku qabanayaa waa sharafka qaad iyo maaha tusaalahaan musxafka ma la dhunkan karaa laba qowl bay culimadu leeyihin haa iyo maya laakiin qoloba dhinac bay ka eegeen qolo waxay ka eegeen musxafka qofka dhunkanaya ixtiraam iyo jacayl iyo qadarin inuu muujinayo qolana waxay ka eegeen dhinaca kama eegin waxay ka eegeen musxaf markaad dhukato afkaaguna dhacaan iyo qoyaan leeyahay dhacaankaaga iyo qoyaankaaga musxafkii taabanaya sharafka qaad waaye marka waa laga yaabaa halka mas'alo inay culimmadu isugu khilaafaan dhinacna dhinacuu ka eego ay ka noqoto sharafka qaad dhinacna qadarin ay ka noqoto mid walba dhinacuu markaa isaga la raajix noqday xukunka ka dhigo musxafka haddaba anuma barkan karaayo musxaf kor saaran baana xaafidulquraan baan ahay mataacu dunyaaga ma banaana kutubta cilmiga ma la kor saari karaa asaxiixu maya waa musxafku inuu koreeyo korsaarkii tooska ah way intaas korsaarka dadban musxafku meeluu ku jiro kor ma laga mari karaa asalku haa waxaa dhacaysa halkan musxafku yaallaa meeshan dabaqa korkiisaad ku soconaysaa waxaa jira meeshan masaajidka la sameeyo ama meelahan la khaanadaha dukaamada oo kaleeta khaanad buu ku jiraa ta ka koraysa alaab ma saari kartaa haa boorsaad ku xifdaya sanduuquu ku jiraa sanduuqa lama la kor saari karaa asalku haa haddii aan curfiga dhaqanka markaa jirin in ay keenaysa been inay keenaysa sharafka qaad ay keenayso waayo korsaar toosa maaha wabillahi towfiiq su-aashii labaad ahayd qofka marka uu soo tooso ee salaad subax uu weyse qaadanayo isla markaana uu damca inuu weysada ka dhigto saddex jeer faraha waxaan maqlay in 3 jeer la dhaqayo gaar ay u tahay marka ma 6 jeer ayuu qofka gacmihiisa dhaqayaa ujeedada waa 3 jeer ee faraha la dhaqayo ee waajiba mise salaada subax oo kaliya ay u gaar u tahay alxamdulilah horta xadiidku marka hore wuxuu ku soo arooray qofku markuu hurdo ka soo tooso in marka hore gacmaha uu dhaqdo intuusan weelka iyo biyaha gelin gacantana uusan biyo ku qaada wajiga marin nabiguna wuxuu ku sababeeyey fa inna axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu gacantaad intaad hurday meel ay martay warum haysid waxaa laga yaabaa meelahan habboonayn intay ku cuncuneen adoo hurdinaad xoqday gacantii sidaa ahayd wejigii iyo afkii iyo sankii iyo indhihii durbe inaad toos ula aado meesha kuma jirto gacmo 3 jeer la dhaqayo kala maaha tii waajibka tii asalka ahayd 6 laga dhigayo intaadan weysada bilaabin mar kasta waxaa sunnaa gacmaha inaad nadiifiso gacmaha wejigaad ku dhaqi doontaa gacmaha kale aad ku dhaqi doontaa طبعا maadaama nijaaso ku ogeyn waajib maaha على الصحيح واجب maaha xadiidka cilada uu keenay fa inna axadakum laa yadri ayna baatat yadu waxay tilmaamaysaa nijaaso la huba ma jirto waxaan la hubin haddaad tahaaro gacmaha ku ogeyn alyaqiinu laa yazuulu bishaki waay shaki wax ma zuuliyo gacmuhu waa sunno marka in la dhaqo
gaar ahaan markaad hurdo ka soo toosto ile markaad soo jeedo waad ogtahay gacmahaagu meeshay mareen haddana adduunka markaad wareegayso gacmuhu boor baa ku duulaya wasakh badan baa gaadhaysa wejigaad dhaqi doontee gacmaha ka soo horeeyana waa indhihii baa ku yaalla sankii baa ku yaalla afkii baa ku yaalla dhegihii baa ku yaalla jeermiska iyo waxay wataan iyo wasakhdu durbo way geli kartaa saa darteed maxay tahay sida sunnada gacmaha 3 jeer dhaq kadib wejigaa dhaqi 3 jeer waa sunno marna waa waajib biyuhu ay wada gaadheen kadib gacanta markaad wada dhaqayso waajib weeye gacantan in biyaha la wada gaarsiiyo tii hore sunnay ahayd nadaafad caadi ayna ahayd tan laakiin waa waajibkii wa aydiikum gacmaha la yidhi baa farahan ilaa xusulka lala geliyo ila almirfiqayn ay maca almirfiqayn laga dhigo sidaa weeye wabillahi towfiiq magacaygu waa cabdiqaadir cali waxaan salaamayaa sheekh maxamuud maxamed shibliye daadiyaha barnaamijka salaan kadib sheekha waxaa dhibaato iga haysataa xagga nijaasada marka aan suuliga galo waxaa dhacdo in duulduulka nijaasada soo gaadho maradayda balse mar walba waan ma arko yani marada wixii soo gaaray marka arinka ayaa waswaas badan iyo dhibaato badan iga haysataa mar walba waa ka shakiya ee maxaad igula talin lahayd sheekhu alxamdulilah wixii shakiya waswaasa waxba kaama saara xilla laa inaad dhaqdo walaa inaad nadiifiso wixii aad hubsato inay maradaada ama jirkaaga gaareenna 2 arrimood baa lagaa rabaa marka hore inaad ka taxadarto meel duulduul oo nijaasiya kaadi kugu soo duulduusha inaad ku kaadido oo nabiga calaih salaam dad baa qabriga loogu cadaabay maxaa ka mid ah sababaha cadaabka kaana laa yastanzihu min bowli kaadida iskama ilaali jir walidaalika fuqahadeenu ka hadlaan markaad kaajisa dhul bannaanta ku kaajisa meel jilicsan ku kaadi meeshu hadday adag tahay meeshay kaadu ku dhacaysa yar jilci oo budul ka dhigo yar qod si ayna kaadu kugu soo fininin hadda haddaad musqul fadhiisanaysana waa inaad iska ilaalisaa inay kugu soo duulduulaan aad ka taxadartaa karaankaaga iyo dadaalkaaga intii ah markaa kadib taa waa qodobka lagaa rabo qodobka labaad haddaad hubto inay kugu duushayna waa yaqiina waa inaad iska nadiifisaa oo taahirisaa hadday shaki uun tahayna shaki waxba kaagama waajibe waswaaska ha isku sii badin waxaadan arkin waxba lagama soo hubin waxba lagama soo qaado waliqinu laa yazulu bishaki nin baa nabiga calaih salaam xadiidka Abu Hurayra la weydiiyey anoo salaada ku jira waxaan isleeyahay weysadii ka jabto neef baa ka timid wuxuu yidhi nabigu yuusan salaada ka bixin ilaa dhawaqa uu maqlo ama ay u soo urto hadday urto dee way soo baxday dee dhawaqa la maqlo waad hubsatay walidaalika xadiidkaasaa usuusha ka mid ah yaqinu laa yazulu bishaki wabillahi towfiiq sheekh waa ku salaam marka hore waxaan ku weydiinayaa nin shiico ah mowdac ma kula tukan karaa salaada macnaha isaga lama tukanayo ee agtiisa ma ku tukan karaa jazakallahu khayr alxamdulilah salaadada way asixi shiico iska daaya gaal cad haddaad ku ag tukato salaadada way asixi nabigu kacbada agteedu ku tukan jiray iyadoo quraysh raggeedii waaweynaa ee gaaladaha hareeraha fadhiyaan asnaamna taallo intuusan hijrada aadin uu ku tukan jiray nabigu sala allahu alayh wasalam marka kownuhu u agtaada joogo salaadaada waxba u dhimi mayso mar haddaad tiraadu lama tukanayo kuma xidhanayo salaadaada way asaxaysaa adu haddaad ilaaliso shuruudeeda iyo arkaanteeda iyo qaabkeeda ilaaliso wabillahi towfiiq magacaygu waa Bashiir waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo guud ahaan geedka tuwaakada beeristiisa warshadeyntiisa ka ganacsigiisa waxaa laga sameeyaa sida sigaarka tuwaakada la duubo shiishada iyo waxyaabaha la midka ah oo aad moodo xilligan in ay nolosha caadiga ah ka mid noqotay diinta islaamku maxay ka qabtaa alxamdulilah axmedow tuwaakada beeristeeda iyo ka ganacsigeeda isticmaalkeeda xaaraan wey waana maado sun ah mawaada sunta ah ka mid ah waana maado dhib badan u geysatay oo ku haysa bashariyadda dadka kansarku qaba ee kansarka ku dhaco boqolkiiba 10 tubaaka sabab u ah riboodyada ugu dambeeyay sanadkan bilowgiisaan aqrinaynay wadamo badanna saa darteed baa sigaarka iyo qiiqiisii iyo shiishadii laga mamnuucay diyaaradihii baa laga mamnuucay ayabodyada gudahooda meelo gaar oo xidhan mooye meelaha qaarkood waa laga mamnuucay public transportationka iyo gaadiidka caamka waa laga mamnuucay makhaayadihii waa laga mamnuucay jidadkaa laga mamnuucay maxaa loo mamnuucay qiiqaasi dadka cudur buu ku wada beerayaa fuqahadeennii horena inuu xaaraan yahay way sheegaan imaamu nawawi raximah llah taala baabu najaasaad markuu ka hadlayo najaasada wuxuu leeyahay waxyaabaha najaasada ah oo waxyaabaha qoyan ee dhacaan kale ee dareera daqaa'iqulminhaaj markuu ku fasiraya maxaan uga jeedna waxaan ka ixtiraazaya bul xaj waxyaaba xaaraana laakiin aan najaaso ahayn ka tumbagi tubaakada oo kaleeto ama kal banjina way dhahaan fuqahadeena kal banji waad ku arkay
tubaaka iyo albanji iyo isku mid waaye iyo tumbak haddii lagu yidhahdo carabiga eryo badan baa loo qoraa marka maadadan inay xaraam tahay min daaka alwaqti fuqahadeenu way ka hadli jireen haddana waxaa la sii ogaaday inay fuqahadeenu saxsanaayeen oo maadadani sun ay tahay codsiyo badan oo caalami oo waxaa jira in lagu daro nooca daroogooyinka lagu daro oo dembi laga dhigo tubaako oo dhanba meel ay ku timaadaba laa shiishad walaa sigaar tusan kafiif lagu yidhaahdo tu erbad ahaan la isugu diro waana noocan sunta ah oo aad u khatar badan waayo billahi towfiiq waa tahay sheekh su-aashan waxay u muuqanaysaa tii hore inay daba taallo geedka qaadka ama jaadka isaga sidoo kale ka shaqayntiisa iyo ka ganacsigiisa xoolaha laga tabcaayay ma xalaal baa mise waa xaaraam alxamdulilah horta qaadkuna waa maado xaaraan oo maandooriya wey daraasaadkii lagu sameeyey dhammaanna gaal iyo muslim inay maandooriyo tahay baa la ysku raacay dee dadka inuu maandooriyo oo dadka waalana dee daraasad baa laga sameeyey uma baahnine indheheennaanoo macallin oo maalin kastaan aragnaa midka habeenkii intuu kululaaday si uu qayilayay magaalo kenya ka mida oo uu soo baxay bannaanka adhiga farfadhiya la sheekaysanaya habeenkii oo dhan oo dad moodayay midkii intuu funaanad garan iyo kaba dacas iyo macawis iyo ku soo baxay ibriiq musquul buu u socdaye intaasoo kilomitir dhaafay ama intuu gaari qaarkood raaceen magaalo kale isagoo joogay sarkay kuwa intuu faynuusta qaatay meesha tuulada ah markuu dhigto ee uu yidhaahdaba nalka kugu shidan muxuu yahay yiri isagoo cadhaysan soo noqda dowladdan waan dacweyn berriyo meeshii la fadhiisan lahaa nal bay ku shideen isagu inuu wata ma garanayo midka koodhka suranaya musbaar raadinaya daqsid degan intuu arkay musbaarka mooday kadibna markuu duulay la daba socday musbaarka duulaya muxuu yahay leh midka videoga duubay laga yaabaa inay u dambeyn aragteen qaarkiina in badan oo intuu de walaashii iyo seedigii qol deganaa isna ag deganaa meesha fadhiga intuu ku qayilay weelashii iyo gurigii iyo dharkii oo dhan intuu dhaqay markii dambe yidhi ilaahay go' laba nafar ay labadoodu huwa yihiin baa dhiman intuu u soo galay go'i ka jiitay waxaasoo dhan dad miyir qaba miyaa dad miyir qaba maaha ninka ilmihiisii oo gaajaysan aan danka lahayn kuwa u googo'ay ingiriiska waga dhaweytee la joojiyey mustalax baa ka jiray baa laygu yidhi hadday nolosha la qabsadeen markay maalihii godadkay ka soo baxeen qaadka laga joojiyey magac waxaa la bixinayaa barakacayaasha cusub barakacayaasha cusub baa loo bixiyey dee meeshay ku jireen iyo godadkii qiiqa badnaa qaar ugu tegi jirnay ka wacdi jirnay way tuban yihiin xafiis ma yaqaanaan waxbarasho kuma jiraan shaqo ma yaqaanaan midba wuxuu ku leeyahay waa waxaa la yaaba axmedow kuwaan ugu tagnay meel london ka mid a labaa wada hadlaysa marka goormaan joognaa waxaan joognaa 2003 miyahayd mise labadii bay ahayd ku kaluu la hadlayaa waagu godka gelayay naag la dhihi jiray markaas Thatcher baa wadanka haysatay inay ka degtay oo ra'iisul wasaaradda ka dambeeyay John Major la dhihi jiray uu ka degay ku kala ka dambeeyay warmaayo markaas wuxuu leeyahay wartii Thatcher hay maxay tiri maalmahan magaaladu degay lana waliba tiiba nolosha ka dhacay ka baxay qaar waxay yiraahdeen ilmihiisi waa waaweynaa isu daamarayeen kasoo heblay kan yaa dhalay madarisku ka soo wareegay iska warqab marka waxa soo miiran inay dadka miir qabin maxaa waalay qaad baa wada waalay geedkani maandooriye weeye geedkani ubad fasaadiye weeye drugsku caalamka ku jira maanta markii la baaray marka darooga ka shaqaysigeedan xaraan way billahi tawfiiq waan idin salaamay dhammaantiin magacaygu waa maxamed carab oo jooga Jabuuti waxaan sheekha weydiinayaa waalidkayga xajka ma geyn karaa alxamdulilah طبعا ها xajka waad u raaci kartaa hadduu saa'ilku ka wada anigoon xajin waalidkay xajka ma u diri karaa iyadana haa dhibaato ma laha billahi tawfiiq waa tahay su-aasha ugu dambeyseen doonayna inaan barnaamijkeena kusoo afmeerno assalaamu calaykum sheekh waan ku salaamay salaan kadib sheekhow ma jirtaa xuquuq ay ka siman yihiin ragga iyo dumarka haddii ay jirta bal noo sharax si aan uga jaahil baxno jazaaka allahu khayr alxamdulilah laba erey aan dhaho axmedow mar weeye ereyga sinaanshuhu erey dalab le weeye shariicadeennu mustalaxa ma isticmaasho bedelkiisa cadaalad bay isticmaashaa cadaaladdu waa intii simanna in la simo intaan sinnaynna inaan la simin waayo dadku fara siman ma wada noqon karaan xuquuqda way kala qaraabaysan yihiin way kala xuquuq badan yihiin
markii xil la yidhaahdana way kala karti iyo aqoon badan yihiin. aqoon baa la isdheeryahay, karti baa la isdheeryahay, caqliga garashaa la isdheeryahay. dadka intii siman in xuquuqdooda la siiyo, intay wax isdheerna in isku wax la siiyo waa dembi. sharciyadeenu cadaalad maaha. mustalaxa saxda ah iyo ereyga saxda in la isticmaalo musaawaad iyo sinaan maaha. ereyga saxda in la isticmaalo cadaalad wey. ilaahay meeluu sinaan nagu faray aniga garan maayo, laakiin in allaha yaamurukum bilcadli. ilaahay cadaalad buu idin farayaa. intaa meelood baa cadaalad la isfarayo. waaqsituu in allaha yuxibbu lmuqsitiin, cadaalad sameeya. intaasoo meelood baa laynagu farayaa. saa darteed waxaan rabaa inaa horta ereyga ah sinaan 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 waa erey ujeeddo iyo laga leeyahay oo dalab le weeye. qofka muslimka inuu dhunto maaha. ereyga saxda bedelkiisu cadaalad 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 wey. marka taa laga soo gudbo, marka laga hadlaya rag iyo dumar, asalka addoonnimada ilaahay, iimaankii, usuusha cibaadaadka waajibaadkeeda, iimaankii, salaadii iyo tahaaradii, soonkii, zaka hadday xoolo yeelato, xajkii hadday shuruudeedii buuxiso, dee cibaadaadkii ilaahay way u siman yihiin. dembiga xaaraantinimadiisa iyo cuqubada ka dhalanaysa waa u siman yihiin. camalka saalixee la samaynayo iyo ajirka laga helaya waa u siman yihiin. asalku waa sidaa. markii waxyaaba yaryar laga reebo, tahaaradii qaabka mararka qaarkood caado ay qabtay waxbaa kala duwanaanaya. markii acmaashii saalixada ahayd la yidhaahdo, qaar baa kala duwanaanaya. qoyska marka la yidhaahdo, reerka isqaba, xuquuq ay gabadhu gaar u leedahay, mid ninku gaar u leeyahay, miday isweydaarsadeen oo isku wada leeyihiin, intaa way leedahay. ninku wuxuu gaar u leeyahay hadalkiisa in la maqlo, gabadhu gaar waxay u leedahay nafaqadeeda iyo biilkeeda iyo nolosheeda inay ninka ka hesho. isagu kuma le, iyadu ku leedahay. xataa hadday maalqabeenta ay ku leedahay, isagu laakiin kuma laha. iyadoona waxaan macsi ahayn taaco iyo maqal buu ku leeyahay, iyaduse kuma laha. inay wadaagaan oo si fiican loo wada dhaqmo, in wixii shuruudii lagu heshiiyey la ilaaliyo. xuquuq mushtaraka ay culimmadu ka hadlaanna way leeyihiin. hadday caruur yihiin aabbo wada dhalay, cadaalad bay wada mudan yihiin, inuu cadaalad u sameeyo. saas darteed mas'alada saxda waa cadaalad. waajibaad badan way ka siman yihiin, waxyaabana way ku kala duwan yihiin. in waxay ka siman yihiinna ka sinaadaan, waxay ku kala duwanaadaan. hadihi alcadaala. waxaan rabaa gabdhaha muslimka gaar ahaan ee Soomaaliya codkayga fahmaya inaan u sheego, waxaan sheekada reer cadaanku akhrinayaan waxa ugu badan ee islaama waa haweenka cadaanka ah. weliba qaybta mutacalimiinta ee waxbaratay wey. waxa laydin akhriyayo hadduu wax run yahay, kuwii ku dhashay ee wax ku bartay cadaanka ahaa maana islaameen. riboodka kaniisada ugu dambeeyay soo saareen, waxa ugu badan ee islaama waa gabdho cadaana oo mutacalimaada. iyagii wax bartay hadday islaamayaan, halka waxaad ka garatay sheekadan beenta ee la dhisaya islaam baa dumar dulmiyey, islaam baa kanihi sheeko beena wey. billahi tawfiiq. guud ahaan daawadayaal inta ayaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii kulanka Shibli oo aad inooga barateen toddobaad dolbahaadaha iyo kale. ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli oo hadii jeer barnaamijka ay nagala qayb qaata, su'aalaad inoo si dartaana si waafi uga jawaaba. marka xigta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan tiimka Somali Cable oo ugu horeeya injineer Cabdiraxiin Nuur Iimaan Darbo oo hadii jeer inaga xaqatira dhanka farsamada iyo kaamirada. ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa dhammaan daawadayaasha Somali Cable, gaar ahaan kuwa sida tooska ugu xiran barnaamijkan ee waqtigooda qaaliga ku bixiya. tan intaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono, waani waa Axmed Isaaq Cabdi Axmed Laqay, Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo noole kulanti. Assalaamu calaykum.